dunidan waxaa ku nool dad doonaya inay wax afduubtaan ama ay dilaan sidaasi darteed dadka qaar ayaa samaystay ilaalo khaas ah sida siyaasiyiinta madaxda iyo dadka hantida leh waxayna sidaasi u sameeyaan waa kuwa cadowgoodu badan yahay haddaba daawadayaal maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa dadka ugu ilaalada badan dunida maydka ugu ilaalada badan dunida haddaad maqli jirtay qof nool ayaa la ilaaliyaa waxaa maantaba jirta in mayd loo sameeyo ilaalo khaas ah oo isaga ilaaliya haddaba waa dhif iyo naadir in la ilaaliyo mayd haddaba arrintaasi waxay ka dhacday dalka ruushka waana madaxweynihii ugu horreeyey ee midowgii sofiyeeti oo loogu magacaabi jiray Vladimir Lenin waxaana halkan maydkiisa la dhigay 1924 waxaana waardiyeeya maydkani ilaalo khaas ah muddo dhan 95 sanado dadka ilaaliya waxay u arkaan si caadiya mana aha mid ay sameeyaan dalalka kale ee adduunku laakiin arrinkan oo kaliya waxa sameeyay dalka ruushka maxbuuska ugu ilaalada badan dunida kani waa xabsiga ugu ilaalada adag dunida waxaana ku jira ninkani ku caanka ah ka ganacsiga daroogada ninkani oo ku magac dheer Aljibo ninkani waxaa la xidhay marar badan waana mid ka baxsada jeelasha sanadii 2016 waxa uu ka baxsaday xabsi ku yaala Mareykanka waxaanu noqday maxbuuska ugu ilaalada adag dunida waxaana sidoo kale ninkani wax ka waardiyeeya eygaasi oo ka baadha cuntada waxyaabaha maanka dooriya iyo sunta ninkani waxaa lagu eedeeyay inuu laayay dad badan oo Mexican ah oo ka ganacsan jiray daroogada gabadha ugu ilaalada adag dunida waxay ka dhacday qiso la yaab leh dalka Addis Ababa meel u jirta 7 kiiloomitir caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa gabadhan yar oo jirtay muddo 12 sanadood ah ayaa la waayay muddo isbuuc ah kadib markii uu ninku qasbay guur aanay iyadu raalli ka ahayn kadib waa la waayay waxayna gashay cuunka iyadoo gabadhani la kulantay 3 libaax markii ay gabadhani aragtay libaaxyada waa iska oohisay waxaana dib uga laabtay libaaxyadii markii ay libaaxyadu arkeen gabadhani waa ay fiiriyeen kadib dib ayay uga laabteen libaaxyadu markay arkeen ilmada ka daaysa inantan yar kadibna waxaa waardiyo u noqday libaaxyadii waxaana la isweydiiyey sababta ay u cuni waayeen libaaxyadu laakiinse maysan dhicin inay libaaxyadu cunaan cunugan yar oo waardiyo ayay u noqdeen libaaxyadu fadlan haddaad ku cusub tahay channelkayaga subscribe saar si video kasta oo ugu horeeya aanu soo gelino bartayada YouTube-ka uu ku soo gaadho mahadsanid